waa banaanbaxa siyaaradii 76aad ee Allah u naxariistay sheekhi weynaa Sheekh Xaaji Aadan Maxamuud iyo wiilkiisa Macalin Cabdullaahi oo ka dhacday magaalada Mareergur ee gobolka Galgaduud. Sheekh Xaaji Aadan wuxuu ka mid ahaa culimadii Sheekh Cali Maye u soo diray gobolada dhexe si ay diinta ugu fidiyaan. boqolaal xeer iyo mashaayikh ah oo ka kala timaaday qaar ka mid ah magaalooyinka Galmudug sida Gurceel, Dhuusamareeb, Cadaadam iyo Mareergur ayaa ka soo qayb galay siyaaradda iyadoona ay nala hadleen qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay siyaaradda. Sheekh Xaaji Aadan Maxamuud oo bil kasta oo safar ah lagu dhigo degmadan Ilaahay fadligiisa waxa subhanahu wa ta'ala muddo dhowr iyo 20 sano ah ayaan siyaaradan soo wadnay waxaana la bilownay sheekheeni weynaa Sheekh Cabdi Xirsi iyo sheekheeni weynaa Sheekh Cabdiraxmaan Xaaji Aadan waxaana la kula dhigi jirnay magaalada la yiraahdo Gadoon hadda loo yaqaan Daarusalaam ayaan kula dhigi jirnay kadib markii uu geeriyooday sheekhaani Sheekh Cabdiraxmaan Xaaji Aadan waxaan la dhigi jirnay khaliifkiisii ahaa Cabdullaahi Macalin haddana Ilaahay fadligiisa saasan u soo wadnaa ilaa yoomina hada saasan u soo wadnay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subhanahu wa ta'ala nafaxaadkiisa inuu Ilaahayna soo gaarsiiyo dadka muslimiinta ah oo ka soo nabad galan Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa yakana in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda dhaafo. Xaaji weynaay Xaaji Aadan bana bixiseen galabta joognaa insha Allah ta'ala ikhwaanku meel walba isku yimaadeen meel walba isku yimid oo saraba laga yimid Mareergur bay ka socotaa galabta ka dhacaysa si wanaagsan bay noogu socotaa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa raxmadiisa inuu Ilaahay noogu kulmeeysan uu kulmay galabta banaanbaxa aanu kulmay xaajiga nafaxaadkiisa iyo nuurkiisana Allah nasiyaan leenahay insha Allah ta'ala Xaaji Aadan wuxuu ahay hadde qudbu samaan buu ahay waqtigiisii oo wadanka uu joogay oo diinka uu ka faafinayay iyo quraanka uu ka faafinayay wax badan diinka waxa weeye juhdi badan soo maray sheekh juhdi badan soo maray buu ahay maantay aan joognaa siyaartii macallinkii weynaa Xaaji Aadan iyo wiilkiisii Macalin Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan siyaartaasoo maanta ka socoto degmada Mareergur annaguna aan uga soo qayb galnay aan ka nimid degmada Gurceel runtii siyaarta aad iyo aad si wanaagsan u socotaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad celinaynaa siyaarta awliyaasha waxa lagu gaaraa wanaag badan iyo maaragtay sheeg dad badan iyo culeysyo badan oo jira ayaa lagu qaadaa waxaan rajaynaynaa ziyaarta inaan ku gaari doono wanaag badan oo maaragtay aan rajaynayno